waxaan idinkugu yeernay maantay oo aan u codsaday halkan inaad timaadaan marka ugu horeysa inaan idin wargelino meesha ay wax noo marayaan labo waxa aan damacsannahay iyo saddex markaan intaas idin sheegno inaan idin kala tashanno ama aad nagala munaaqashootaan ama aan ka wada munaaqashoonno xaggee baan halkaas ka aadaynaa sidee baana ku tegaynaa dhowr iyo tobankii maalmood oo aniga iyo wafdigayga halkan aan joognay waxaa soo gashay shacabka reer galmudug oo xuquuq idinku leh inaad garab istaagtaan oo gacan siisaan yididiila cusub ayaa soo gashay yididiila horumareed yididiila dowladeed yididiila mustaqbal yididiila inay iyagu wax qabsan karaan haddii la dhiiri waxaa markaa rabaa marka hore inaan hortiina uga mahad celiyo madaxda reer galmudug gaar ahaan madaxweyne xaaf iyo sheekh shaakir oo labaduba gacan nagu siiyey in dadka reer galmudug ay intay isu yimaadaan gogol dhigtaan ka arrinsadaan aayatiinkooda labaduba waxay aqbaleen in reer galmudug gogol loo fidiyo gogosha magaalada dhuusamareeb lagu fidiyo gogoshaasi ay dhasho in doorasho lagu qabto furan hufan oo xor ah xalaal ah labaduba waxay aqbaleen inay nagala shaqeeyaan ka shaqayntaas ama aqbalkaas ay aqbaleen ayaa ahayd tallaabadii ugu horreysay oo horumarka maadaama sheekh shaakir uu nala joogana waxaan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo in maalintii aan imid ilaa hadda uu noo fidiyey gacan qof loo fidin karo meeshan aan soo gaarnana uu ku leeyahay inta ugu weyn marka waxaan rabaa inaad u mahad celisaan idinkana waa ka heshiinay in gogol diba heshiisayneed la dhigo magaaladan dhuusamareeb oo loo dhigo reer galmudug bardhow waxaan ku dhawaaqi doonaa annagoo la tashanayna qaybaha kala duwan ee bulshada guddigii isu keeni lahaa odayaashii iyo dadkii isu imaan lahaa guddigii dib heshiisiintaas nagala shaqayn lahaa guddi farsameedkii sidoo kale waxay walaalkay sheekh shaakir iyo inta la shaqaysa oggolaadeen in dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ay ka howlgalaan magaalada dhuusamareeb wayna bilaabeen shaqadii wayna joogaan sidoo kale ciidamadii halkan joogay oo suurto geliyey inay soo gaarsiiyaan amniga gobolka maanta meesha uu joogo waxaa lagu bilaabay maalmihii lasoo dhaafay diiwaangelin haddaba socda oo aan aaminsanahay in mar dhow lasoo afjari doono wiilal soomaaliyeed oo dalkan soo difaacay haddana diyaar u ah inay sii difaacaan waxay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidamada booliiska soomaaliyeed ama ciidamada nabad sugidda ama ciidamada asluubta taliyayaashii ka shaqaynayana waa ay joogaan marka lasoo dhammaystiro diiwaangelinta waxay la mid noqon doonaan ciidamada kale ee dowladda soomaaliyeed ee xuquuq leh waxaana bixin doona xuquuqdooda dowladda soomaaliyeed laga bilaabo 1 bisha soo socota haddii ilaah yiraahdo marka diiwaangelintu ay dhammaato sidoo kale waxaa xildhibaanada halkan jooga oo nagala shaqeeyey hawshan iyo taliyayaasha waxay safar ku aadeen qaybo ka mida gobollada ay ka kooban tahay galmudug ama degmooyinka sida meeshan ciidanka loo diiwaan geliyey hubka loo diiwaan gelinayo dowladda loogu wareejinayo amniga mustaqbalka gobolka ay u sugi doonto iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa degmooyinkii ay dowladda madaxdeedu soo martay taliyayaasha ciidamada iyo xildhibaanadu kulligood iyaguna waxay aqbaleen inay hubkana dowladda ku wareejiyaan ciidamada ay hayaana la diiwaan geliyo la qalabeeyo ay iyaga noqdaan ciidamada ay mas-uulka ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya
si kale haddaan u dhigo dhulka aad ka soo jeedaan oo galmudug waxa ay muujiyeen qarannimo iyo dawladnimo aan hore loo arki jirin waxay muujiyeen inay aqbalaan inay isugu yimaadaan magaalo madaxdooda waxay aqbaleen inay khilaaf dhinac iska dhigaan waxay aqbaleen doorasho halkan mustaqbalka inay ku galaan waxay aqbaleen hubka inay iska soo wareejiyaan laga bilaabo xeraale ilaa meesha hadda halkan aan joogno welina meelo kalaa noo dhiman iyadoo weliba aan fursad u helnay aniga iyo wafdigaygu meelahaas aan idiin sheegayno dhan inaan baawuur ku tagno oo aanan diyaarad raacin macnaheedu waxay tahay dadka galmudug ka soo jeeda oo aan aad looga hadlin wanaagooda oo keliya la sheegay keliya dhinaca khaldan iyagaa ka shaqaystay in intaasoo degmo aad isu mari kartid oo gaari ku tegi kartid iyadoo aan cidino ku joojin dhibna aadan la kulmin hadda waxay go'aansadeen inay intay isu yimaadaan dawladda ay hubka ku wareejiyaan waxay fahmeen hub la kala haysto inaan wax tarayn waxay kala fahmeen kulligood in qora aad haysato inaan ahayn waxa amniga keena ay tahay in la is aamino la heshiiyo dawlad la wada leeyahay la dhisto taas ay ka shaqayso sugidda amniga waxay fahmeen in gaargaar iyo degmo iyo gobol aan meel aanay cidna gaarsiinayn haddii la idiin sheegi jiray galmudug waa hallaysan tahay waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo maantay galmudug u muuqata inay tahay tusaalaha cusub oo Soomaaliya galmudug u muuqata meesha horumarka Soomaaliya uu ka bilaaban doono galmudug qoryo ka madax bannaan hub iyo qoloqolo ka madax bannaan dawlad goboleed dhammaystiran leh shaqadu hadda waxay noo maraysaa marka ciidankii iyo shaqaalihii aan ka keenay xamar oo hadda diiwaangelinta wada inay aadi doonaan balambal ay aadi doonaan caabudwa ay aadi doonaan xeraale ay aadi doonaan hurshe ay aadi doonaan bangeele meelaha kale oo aan hubka iyo ciidanka weli noo sheegin inay soo wareejinayaanna iyagana waxaan rabnaa inaan ugu yeerno waxaana aaminsannahay dabayl caafimaad inay ka socoto shacabka iyo dawlad goboleedka mustaqbalka galmudug idinka waxaan idinkugu yeernay marka horta koow inaan idiin sheegno halkan meesha aan joogno fursaddii ugu weyneyd inay shacabkanu leeyihiin sheekh shaakir iyo dadka la midka ah iyo ciidamada halkan jooga iyo inteena kale waxaan fahamnay annagu inaan isu nimaadno waa rajada ay leeyihiin dad kale oo walaalaheena oo degmooyinkooda cadow u haysto waxay fahmeen haddii ayaga aanay midoobin kuwa halkan jooga iyo kuwa xeraale jooga iyo kuwa caabudwaaq jooga waxay fahmeen haddii iyagu aanay midoobin in 100 kilomitir oo xeebta cadowga naga haysta aanan xoreysan karin in degmooyinka naga go'doonsan dadkeena aanan u gargaari karin in mustaqbalkeena dadkeenu ay naga baaba'ayaan fikirkaas caafimaadka qaba ayaan isla helnay haddii aan nahay dadkii idinkaga soo horreeyay halkan laga bilaabo maanta waxaan idinkugu yeernay shaqadaas inaad qayb ka noqotaan haddii ilaahay yiraahdo reer galmudug waxay go'aansadeen inay hormuud ka noqdaan nabadeynta dalka Soomaaliya reer galmudug waxay hormuud ka noqdeen inay qayb ka noqdaan inay bedelaan magacii hore Soomaali u yaallay oo ahaa in amni darre ay jirto in qoryo la haysto inaan la isu imaan karin maadaama aad tihiin ganacsatadii reer galmudug oo aad tihiin dadkii la rabay inay dadkan gacan qabtaan ama la rabay meeshan mustaqbalkeedu iftiin uu noqonayo hadda inay intay yimaadaan ay maal gashadaan si dadka shaqo loogu abuuro idinkuna waxa uga heshaan meeshan magaalo madaxay noqonaysaa degmooyinkana waa la xoreyn doonaa khayraadkeedana waa la soo saari doonaa waxaan idinkugu yeernay
dadkuna xaqay idinku leeyihiin idinkuna xaqaa ku leedihiin way soo hagaagtay galmudug ee halkan indhihiina taasaan idinkugu yeedhay waxaa kaloo idinkugu yeernay inaan idiin sheegno maalmihii halka aanan joognay waxaa jira dad badan oo shaki muujinaya oo aan aaminsanayn meesha aan maanta soo gaarnay inaan la gaari karin weli aaminsan meeshan in laga dhaqaaqi karin qaar baa raba inaan meeshan laga dhaqaaqin waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotiin kumanaankii kun oo qof oo gurceel isugu soo baxay ama caabud waaq isugu soo baxay ama cadaada isugu soo baxay oo yiri waxaan rabnaa dawlad oo idinkugu baaqay haddaa ganacsatada tihiin inaad dadkiina u timaadiin dhib iyo dheef aad la qaybsatiin laga bilaabo maanta marka waxaan rabnaa inaadan noqonina dad gurigooda marti ka ah mustaqbalka dadka halkan jooga gobol walba iyo degmo walba cidda laga rabo inay gacan siiso idinka waayo meeshan aan idinkugu yeernay maanta waxaan rabnaa inaan idin marqaati gashanno meesha aan joogno iyo waajibka annagana saaran mid la mid ah ama ka weyn idin cidla ma ahayn waad nala joogtaan waxaan rabaa marka inaad saas u ogaataan kulligeen mas-uuliyad wadareed ayaa nala ka rabaa dalkan inaan u samayno nidaam shaqaynaya gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug waxaa kaloon aaminsannahay halkani waa xuduntii dalka waa lafdhabarkii dadka soomaaliya intan ayay dhashay galmudug iyo in ka badan haddii lagu sii dadaala in ka sii fiican ay dhalaysaa horumar ka sii weynay keenaysaa maadaama taasi ay tahay fahamka aan rabno in uu aasaaska shaqadeenna u ahaado waxay tahay galmudug in la hagaajiyo la qurxiyo waa in soomaaliya la hagaajiyey la qurxiyey inaan xoog iyo maskax iyo waqti aan wada gelinno waa soo dhaweynaya waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego waxaa noo soo baxaya ciidan badan oo boqolaal iyo kumanaan ah oo dhallinyaro ah oo naftooda soo qadimay oo xooggan ciidankaas waxaan rabnaa marka la qarameeyo isla markiiba inay bilaabaan markii iyaga la isku dhafo kadib inay gobollada dalka gaar ahaan meeshan inay shaqo ka bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan oo meel walba oo galmudug ka tirsan oo cadow uu joogo maadaama aan midownay la sifeeyo iyadana waxaan rabnaa inaad ku baraarugsanataan waxaa kaloo imaanaya meeshan isugu imaanaya adduunyadao dhan maadaama doorasho ay ka dhici doonto maadaama magaalo madax ay noqon doonto in magaceeda iyo sharafteeda iyo maamuuskeeda la ilaaliyo waa muhiim in la arko ganacsatadeeda oo imaanaysa waa muhiim in la arko iyadoo maal gashanaysa waa muhiim khilaafkii hore u jiri jiray midnimo in lagu bedelo cidda la rabo inay tusaale u noqoto idinka waayo ku dhowaad 30 sano meeshan ka maqneedeen labada sano soo socota waxaan rabnaa xooggiina ugu badan inaad gelisaan magaaladan iyo galmudug inteeda kale ugu dambeyntii waqti badan ma hayno mar dhow guddi dib u heshiisiin iclaamin doonaa gogolaa la dhigi doonaa guddigaas waxaa ku xigi doona guddiga doorashooyinka dhici doona inta waxaasi ay socdaan gacan walbaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay qof walba oo idinka mida oo qof reer galmuduga oo meel ka qaylinaysa oo dan gaar ah u qaylinaysa ama siyaasi dan leh ama mid diidan saaxiib la ah waxaan rabnaa inaad tusaale u noqotiin inaad tiraahdiin waqtigaas waa la soo dhaafay danta galmudug ayaan ka hormarinaynaa danta danleyda siyaasiyiinta ugu horeeyaan